ilma qabo abow ani ilma qabo carada adiga ka maqan abo waxba ilma qabo camburba u xiran casha camburba u xiran cadkii maradaad gadaa abo cumar wali u xiran cid unbaa la heli abow cid unbaa la heli culayskana la qaybsato caawisa maskiinta la heli. waxaa labada dhinac iga kala fadhiya abwaan Cabdalla Macnaawi iyo sidoo kaleeto Maxamed Qadar oo ahaa wiilkii ku luuqeynayay qasiidadii dareenka badan kicisay run ahaantii oo dad badan dareenkooda badashay. bal waxaan ogaan doonaa sababta loo alifay ama keentay in qasiidada la qaado iyo sidoo kaleeto ahwaasha Maxamed Qadar oo ku sugan yahay. dabcan dad badan waxay dhaheen waa agoon inaan caawina rabnaa sidaas soo gaartay. marka bal waxaan ogaan doonaa waxyaalaha ku kalifay iyo inuu Maxamed Qadar agoon yahay iyo in kaleeto. marka hore waxaan soo dhaweynaya ustaad Cabdalla. waa saaxiib waana ku dhawahay page-ka Abwaan Sharlaawe waxaad ay tahay in runtii ka soo muuqdo runtii qasiidadan waxay ku timid muuqaal aan maalmihii ciida ka hor aan ka daawaday baraha bulshada. muuqaalka walaahi cidii soo dhigay hadda ma sheegi karo laakiin waxay ahaayeen caruur runtii codsanaya in la ciidsiiyo oo agoon ahayd. muuqaalkii markaan dhameystay yaa waxaan go'aansaday bal ugu yaraan in aan hal abuurkeyga iyo suugaanta intii aan ka garanaya bal inaan wax ka curiyo. marka muuqaalkaas ay ku timid waxaan raadiyay tiimkii ama cidii ku luuqeyn karto maadaama qof weyn uusan hadda ku luuqeyn karin. marka waxaa jira tiim aan tababarayay oo kooxda ubadsan. markii hore waxaan ugu talagalay inay qaado gabar tiimka ka tirsanayd oo runtii agoon ahayd abeed Allah u naxariisto. way awoodi weysay intii aan xifdisiinayay iyo intii la duubayba aad bay u ilmeynaysay. mar dambaan marka go'aansaday inaan bedelo oon Maxamed Qadar aan codka siiyo si fariinta bulshada u gaarsiiyo. marka muuqaalka baraha bulshada aan ka arkay oo ilmaha agoonta aad maxay ahayd adeer aaban ciidsii lahaa oo aabahin waa dhintay fadlan hana la ciidsiyo lahaa. muuqaalkii uma dareenkayga rogay sida ayaan ku timid abwaan. dabcan Maxamed Qadarna waana la joogaa waana ka codsan doonaa inuu nagu luuqeeyo. Maxamed Qadar ma agoon ba? su'aalaha runtii dad badan oo ila soo xiriiray iyo kuwa kale oo muuqaalka arkay waxaan u maleynayaa in qalbigooda ka dhex guuxayaan. Maxamed Qadar agoon ma aha. xaqamar waalidii hooyo aabbo u nool yihiin Allah u deysto. kaliya fariintii oo runtii u baahneed cod caruur ayuu nala gudbinayay. marka agoon ma aha. waalidkii waa u nool yihiin waxbana kama haleysno. kaliya fariintii aanan qof weyn gudbin karin qof agoonna markii aan ku daynay awoodi waayay oo aad u ilmeeyay baan asaga u dhiibnay sida ayuuna ku gudbiyay. marka Maxamed Qadar agoon ma aha. waa wiil waalidkii nool yihiin kaliya fariinta ayuu bulshadana la gaarsiinay. walaalahaas agoonta ah ayuu la dareenaha. abwaanow markaa fiiriso maasada qofku markuu aad u dhageysto dareenkiisa aad u taabanaysa. bal iska dhaaf qof nolosha ku soo koray. adiga miyaa nolol agoonnimo ku soo koray? abwaan waa mahadsan tahay. dad asxaab aan nahay dad kale taba su'aasha ayagana tirada ay soo weydiiyeen. sidoo kale aniga agoon ma ahi. waalidey hooyo aabbahay waa nool yihiin Allah ay deysto. laakiin waxaan qofka hal abuurka ah ama abwaanka ah markasta wuxuu la dareen yahay bulshadii dadka marka iyada waxay indhiis qabanayaan. caruurta aan muuqaalkooda arkay ayaan runtii la dareen ahaa marka iyada ah sida ay dareemayaan ayaan la dareemay. marka anigu agoon ma ahi. waalidkii waa ii nool Allah ay deysto. laakiin marka iyada ah wax ma dhaamin agoon markii aan xurinta ku jiray oo aan ereyada dhameystirayay inkastoo marxalada ay soo mareen. wallahi muuqaalka uma gediyay oo maxay ahayd dareenkayga bedelay. marka agoon ma ahi. waalidkii waa ii nool yihiin Allah ay deysto. maxaan qamarna waalidkii waa u nool yahay Allah u deysto. kaliya fariinta bulshada iyo maanta siday tahay xaaladda agoonta umaan runtii wax ka curinayn marka iyada. run ahaantii taa waxay ku cadeynaysaa qofka hal abuurka ama abwaanka inuu la dareen yahay bulshada yahanay turjumaaga ama waxyaalaha afkaarta ama qalbiyada dadka ka imaada. dhinacigan waxaa fadhiya Maxamed Qadar oo ah wiilka codka macaan kula luuqeynaya qasiidada walaalkeen uu sameeyay. maxamed fiicanta horta? fiicana. aad waan wastaa. run ahaantii dad badan ayaa qalbiyadooda taabatay. dad badan ayaa dareen gelisay. dad badan ayaa xasuus gelisay. marka aad qaadaysay sidee dareemaysaa adiga? ana xataa waxa dareemaa in agoon ah laakiin ilaahay miikaso. ilaahay aabbaha deysto. bal dad badan waxay xiiseynayaan mar kale inay maqlaan dareenkoodiina xooga alla falgasho. ma nagu luuqeyn kartaa? ciid ma helin cashiyo cumar ciid ma helin cabdiyo cali ciid ma helin aabow ana ciid ma helin ciidayaan facay way ciidayaan anaawan cidloonayaa cidlaan kaligeesaya ciidilaa hubaal waan ciidilaa haddaad cawa nooshahay aabbo waan ciidilaa
ilma qabo abow ani ilma qabo carada adiga ka maqan abow waxba ilma qabo camburba u xiran cashaa camburba u xiran cadkii maradaad gadaa abow cumar wali u xiran cid unbaa la heli abow cid unbaa la heli culayskana la qaybsato caawisa maskiinta la heli cid unbaa la heli abo cid unbaa la heli mar kale hadda abwaana kusoo laabto laba meeloodba aada dareenkii u kiciya marka caban ayuu leeyahay cambuurkii iyo weli cadkii margoto weli u xiran waxaad dareemaysaa abo muddo mootana kadib inaysan maciin iyo gargar helin bal ereyada waxaad moodaa weli mar kale su-aalaha igu laaban oo waxaan leeyahay ereyada qof mana awaal kuma imaan karaa aad iyo aad abaan waa mahadsan tahay horta meelaha dadka taabtay ka mid tahay cambuur baa u xiran abo caasho cambuur baa u xiran cadkii maradaad gadaa abo cumar weli u xiran waxay muujinaysaa agoonta aabihii wax u gadayay markuu ka tagay kadib in yani gadaal loogu laabanin oo kale marka waana xaalad jirto markaa fiiriso agoonta inta badan waxaa waaye maalinkii duugta la tago oo aabihii lasoo duugo oo cidda lasoo booqdo hadiiba la booqday ayaa dadka ugu dambeynayso xitaa xigtadii u dambeysay ee la dhalatay ama wax u ahayd waxaa laga yaabaa inaysan ku leexanin marka aaba kaleetana uu maalin kasta uu markuu shaqo ka yimaado ilmihiisa hordhar ugu soo gadaayo waxaa laga yaabaa 3 sano 4 sano cunugan dharkii aabihii dhal u gaday inuu weli xiran yahay oo wax ka bedelo uusan helin marka dareenkan umay ku timid waana mid aan runtii arkay oo bulshada markaa fiiriso ay ka jirto marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ha soo damqadaana ha soo naxariistaana agoontana ha laga warqabo oo ha la booqdo adduunyadan la isma siinin ninba maalin ayuu ka tagayaa aabaha adiga aad haysata shalay midkan hadda cabanayo wuu haystay ilaah baase ka jeclaaday marka waxaan leeyahay hal soo naxariisto annaga hadaan soo naxariisanana wax badan inay noo hagaagayaan ayaan aaminsanahay aad iyo aad ay mahadsantihiin maxaa qadar iyo ustaad cabdalla intaba run ahaantii waxaad dadka la qaybsateen dareen waxaad haddii ilaah ku garab istaagteen walaalo Soomaaliyeed dabcan markaan maasadan baahinay wixii ka dambeeyey waxaa idhaahday bal labada maalin oo harta dadku istaagayna run ahaantii dad badana kasoo jawaabay ustaadow waana mahad gooniya adiga iyo maxaa qadar idin sugnaatay dad badan oo run ahaantii cadad aan ka filanin ka badana kasoo jawaabay insha Allah waxaan rajaynaynaa in dad badan ay sabab noqoto farxadda maantii maasadeennii curuntiinii sidoo kale codkiinii iskaashadaba iyo balaas baahinteennii aan ku darnaba in walaalo Soomaaliyeed oo murugeysnaa oo ka tabaaleysnaa sida caruurta agoonta ula tacaalaya ay hadda ka feedmi doonto insha Allah markalena aad aan ku mahad celinayaa dadka waxaan rabaa inaan ogeysiiyo Maxamed waalidkiisa Ilaahay ha u daysto way u nool yihiin sidoo kale ustaad Cabdallana sidoo kale waalidkii way u nool yihiin laakiin taa waxay ku cadeynaysaa garab istaagu in markasta uusan ku xirreyn dareenka adigu ku sugantahay anigu hadda Soomaalina waxa u baran qof haduu cabanayo aragno inaan yiraahdo dareenkiisa ka cabanaya laakiin ruuxantii maasadu marka ay taana maasan nafsiyan ah in la yiraahdo war agoonta hala caawiyo iyo hala caawiyo ana agoon way kala duwan tahay waa dareenka kala hadalku way kala duwan marka ustaadu aadan marka ku mahad celinayaa maasadaas dareen hadalka sidoo kalena maxaan qaar waxaan ku leenahay codkaada Ilaahay ku barakeeyo markasta insha Allah waxaan rajaynayaa ducadii lagu duceey jiro ah kii dalkiisa iyo dadkiisa diintiisa anfa in Ilaahay ku aqbalay hiilkaadi u horeeyo inta da'daada la egtaa maanta boqolaal baa farxadooda insha Allah ka shaqeysan Ilaahay karameeyo markalena waan kaga mahad celinaya inaad soo booqateen oo xafiiskayga u imaateen waxaan rajaynayaa markii koowaad inaysan noqon mar kale ay imaataan insha Allah anuguna xarumihiin iyo meelihiina idin imaado insha Allah tiimka aad macalinka u tahan insha Allah inaan bal markay imaado axwaashin ka soo doono sababtoo waa tiim wax badan ka soo burqanayaan waaye aadan u mahadsantiin waan soo dhaweynayaa markale soo dhaweynaya insha Allah hore u soo insha Allah